habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London. Magaalada Hargeysa waxaa ka jira xafiis dadka danyarta ah ee kiisasku ay ka yaalaan maxkamadaha si lacag la'aan ah ugu qabta qareenno u dooda. Xafiiskan oo la yiraahdo Legal Aid Clinic waxa uu ka tirsan yahay qaybta sharciga ee jaamacadda Hargeysa. Waxaa kaloo jira xafiisyo adeegan bixiya. Warbixin ku saabsan haddaba warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha BBC da Sadiq Maxamed Burmad. toddobaad kasta waxaa soo gaadha xafiiskan ilaa dhowr iyo 20 dacwadood oo dadka danyarta ahi ay rabaan inay ka caawiyaan looyaradii u doodi lahaa maadaama aanay iskood u karaysan karin looyar ay lacag siiyaan. kiisaska ay wax ka qabtaan xafiiskani waxaa ka mid ah dacwadaha ciqaabta ah, kuwa madaniga ah, gashiga dadka kala gala, muranada dhulka, dhaxalka iyo dacwadaha qoyska. kiiska hooyadani waa mid ku salaysan muran lacageed waxaana uu soo jiitamayay ilaa iyo 6 sanadood. maxaad ku doorbiday in qoladan aad looyar ka dhigato aad? waxba waanan haysan miskiinad baan ahay dee waxay yidhaahdeen xaqaaga waa lagaaga qaadayaa ayay saakay ku soo bishaareeyey waa tan saaka soo baxday kharashkii dacwadda iyo xaqeediiba. intii aanay helin adeegan sharci hooyadanina waxa ay waqti badan iyo lacagiba ay kaga baxday dacwad dhul oo ay muddo maxkamadda ugu jirtay. halkanaana mid jaamacadda la geeyo waa layga soo raaciyay wax lacagna igama qaatay waa ciidamada tabaruca dadka ku shaqeeya ee masaakiinta u shaqeeya ana masaakiin baan ahaa markaas si wanaagsan ayay dacwaddii igu socotaa dhulkii kaloo dhan way soo dhaabtay imaka waxay maraysaa fulin bay maraysaa in dadkii deganaa layga raro ayay maraysaa. mid ka mid ah 6 looyar oo xafiiskan ka howlgala ayaan wax ka weydiiyey qaabka ay u wajahaan dacwadaha iyo adeegyada ay danyarta u qabtaan. dacwado badan waan ku guulaysanaa qaarna waa nalaga helaa qaar badan waan ugu guulaysanaa dadka marka hore aan dadka u sheegnaa oo kala talinaa oo wixii aan sharci ahayn ee aanan u arki karin inaan xaq u lahayn aanu kala talinaa iska daayaan laakiin wixii aan isnaano sharci bay u leeyahay oo xaq weeyaan ayaanu dadka ugu doodnaa marka hore legal advice baanu siinaa. xafiiskan Legal Clinic waxa uu qayb ka yahay jaamacadda Hargeysa qaybteeda sharciga waxaana ay u doodaan dadka danyarta ah ee dacwadaha uga baahan looyaro ka caawiya si lacag la'aan ah. Sadiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa.